Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena caafimaadka ee Caafimaad Channel. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ah, ku soo dhawaada niyad saafi ah. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin inaad ku soo biirto janaalkeena. Subscribe-ka saaro, fiidiyowgana ha ka iloobin inaad like saarto. Xanuunada wadnaha waxay hogaamiyaan ama ugu horeeyaan dhammaan xanuunada loo dhinto ama sababa dhimashada. Waxayna kaalinta koowaad uga jiraan xanuunada sababa geerida caalamka oo idil. Taasi micnaheedu maahan in aan waxba laga qaban karin amaba la aqbala in ay sii hogaamiyaan kaalinta koowaad ee cudurrada sababa geerida. Waxaa jira qodobo ama siyaabo badan oo wax looga qaban karo laguna yareyn kara xanuunada ku dhaca wadnaha. Qaababkaasina waxay u badan yihiin habab aan daawo ahayn ama qaabab dabiici ah ama qofka nolol maalmeedkiisa inuu wax ka bedelo. Waxaana ka mid ah qodobka koowaad: ha cabin sigaarka ama tubaakada. Haddii aad cabtana si degdeg ah u jooji. Cabidda sigaarku ama tubaakadu waxay siyaadiyaan halista caafimaad darro oo soo wajahda wadnaha. Tusaale ahaan, maadada loo yaqaano carbon monoxide ee ku jirta sigaarka waxay beddeshaa qaar ka mid ah oksijiinta dhiigga ku jirta, taasoo sababayso in wadnaha uu u shaqeeyo si xawli ah si uu oksijiin u siiyo unugyada jirka. Waxayna taasi kalifaysaa amaba qasbaysaa in ay xididada yaryaraadaan cadaadis ay la kulmayaan dartood. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in gebi ahaanba la joojiyo sigaarka ama tubaakada, maadaama ay halis caafimaad kugu yihiin. Qodobka labaad: samee jimicsi ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii. Jimicsigu wuxuu daawo aan la dhayalsan karin u yahay xanuuno badan oo kuwa wadnaha ay kow ka yihiin. Waxaa quman ama wanaagsan in ugu yaraan la jimicsado 30 daqiiqo maalintii ama 4 maalmood isbuucii. Wuxuu yareeyaa jimicsiga culayska jirka, taasoo aad muhiim ugu ah caafimaadka wadnaheena iyo guud ahaanba jirka intiisa kale. Jimicsiga ma ahan qofka in uu biro qaado ama wax kale uu sameeyo. Wuxuu sameyn karaa socod fudud asagoo xoogoo yara boobsiinaya maalinkii 30 daqiiqo. Haddii uu awoodin, isbuucii 4 maalin oo ka mid ah in uu socdo 30 daqiiqo. Qodobka saddexaad: cun cuntooyinka u badan khudaarta. Cuntooyinka u badan hilibka ama dufanku waxay waxyeello ballaaran u geystaan caafimaadka wadnaha. Waxaana muhiim ah in la cuno cuntooyin u badan khudaar ama fawaakihaad, sababtoo ah kuma jiraan wax dufan ah oo waxyeeleynaya wadnaha. Waxaana ka buuxa macdan oo wadnaha iyo jirkuba u baahan yahay. Waxaa wanaagsan in la cuno khudaarta, hilibka cad, sidoo kale khudaarta nooceeda cagaaran in la badsado. Dufanka oo jirka ku bato waxay keeni kartaa halis caafimaad, gaar ahaan cudurrada saameeya wadnaha. Qodobka afaraad: la soco culayska jirkaaga ama miisaanka jirkaaga. Waxaa wanaagsan in mar walba aad la socoto culayska jirkaaga adigoo isticmaalaya cabirka loo yaqaano BMI oo laga soo gaabiyey Body Mass Index, si aad u cabirtid culayska jirkaaga oo aad wax uga ogaatid. Waayo cayilku wuxuu saameyn ku leeyahay ama saameyn ku yeelan karaa caafimaadka wadnaha. Qofka in uu isla socdo miisaankiisa, in ay isku dheeli tiran yihiin dhirirkiisa iyo miisaankiisa. Haddii uu yahay qof aad u gaaban uu miisaankiisa aad u badan yahay, taasi waxay ku keeni kartaa halis aad u weyn. Qofka in uu isticmaalo cabirka BMI si uu isugu dheeli tirmo dhirirkiisa iyo miisaanka jirkiisa.
Qodobka shanaad, seexo hurdo kugu filan. Hurdadaada oo aad u yar waxay sababtaa xanuuno badan. Waxaa ka mid ah dhiig karka, sonkorowga, wadne istaaga iyo niyad jabka. Waxaana lagama maarmaan ah in qofku uu seexdo ugu yaraan 24 saac walba 8 saac ka mid ah. Xilliga hurdada wuxuu jirka iska nadiifiyaa wixii dheeri ah oo soo galay, waana muhiim in aad seexato hurdo kugu filan. Qofka in uu seexdo hurdo ku filan, gaar ahaan habeenkii, waxay aad muhiim ugu tahay jirkiisa, maxaa yeelay waxaa laga saarayaa waxyaalo badan oo jirka u baahnayn. Sidoo kale, shaqada kelyaha aad ayay ugu wanaagsan tahay. Haddii aad ka cabanaysa kelyo xanuun ama dhibaato kelyaha, waa in aad ku dadaashaa biyaha cad iyo hurdada habeenkii. Qodobka xiga, si dhow oo la soco xaalkaaga caafimaad. Waxaa wanaagsan in mar walba aad la socoto xaaladaada caafimaad, waayo waxaa macquul ah in aad ka war hesho xilli aan waxba laga qaban karin. Tusaale, in aad bishiiba ama 2 isbuucba mar aad iska cabirto dhiigga, waxay sahlaysaa in aad ka hortagto dhiig kar. Cadadka kolestaroolka jirka oo aad cabirto ayadana waa muhiim. Sidoo kale, in aad iska cabirto sonkorka dhiiggaaga ayadana waa muhiim. Waxaa jira xanuuno kale oo marka uu bilowga yahay wax laga qaban karo, laakiin haddii uu jirka ku faafo aan waxba laga qaban karin. Waxaa ka mid ah kansarka. Qofka haddii uu xaaladiisa si dhow ula socdo, uu qof mar walba isla socdo oo isbaara uu yahay, waxaa fududaan karta haddii uu kansar ku dhaco in la ogaado xilliga uu bilowga yahay, sidaas darteedna wax looga qabto. Laakiin haddii uu ku faafo, waa halis oo waxba lagama qaban karo. Si aad u gaarto heer caafimaad oo aad ku najaxdo, waxaa wanaagsan in aad qaadato talooyinkan aan soo sheegay. Mar walba ogow in caafimaadkaadu ka wanaagsan yahay wax walba ood hayso, ayna lama huraan tahay in aad ka warqabto. Ha dhayalsan, hana fududaysan caafimaadkaaga, waayo wax walba waxaa ka muhiimsan caafimaadka. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah inaad ka faa'iidaysateen cashirkeena maanta, kaasoo ku saabsanaa sida looga hortagi kara xanuunada ku dhaca wadnaha. Fadlan u sheer garee walaalaha kale si ay iyagana uga faa'iidaystaan. Fiidiyowga like inoo saar, maxaa yeelay waa dhiirigelin. Haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir channelka oo subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee daawada fiidiyowyadeenna. Wassalaamu calaykum.